السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناسن إذا لهانتين با كسر دواذا بربرة كنا سر دواذا مقال رو خاصة ودوينك ما دام يسحب هذا قاريس قريين مقال خاصة ودوينك ما تسود دوبتي مركب مقالكي ودوينك خاص كها أيان هل كان يدخل وداعية وحنو كجاشة كين دونارين عهر مركب ودوينك أي مقال كان خاص وياهي سو كلا وحن كدر دونارين عم مجال لرتا يا عقارنتا iyo jawiga magaalada say dhirtu u badashay marka dhirta lagu badiyay maadaama magaaladu tahay magaalo xeebeed oo dhirta aad uga baahan tahay berbera 2024 aynu maranaa jidkana waa jidka berbera laga galay ugu muhiimsan oo sadana dhirta si fiican loogu beeray aadna loo cagaariyay walow xilligan ay tahay xilliyadii jiilaalka ee dhirtu aad u bixi jirin laakiin berberi waxay noqotay magaalo cagaaran magaalooyinka xeebuhu maadaama ay aad u kulul yihiin waxay u baahan yihiin dhirtuna waxay ka mid tahay waxyaalaha magaalooyinka qaboojiya jawiga ka dhiga mid leyd leh roobka soo jiida iyo wixii lamid ah sidoo kale berbera marka joogto amba magaalooyinka dhirta lagu cagaariyay adiga yar harsan kara haddii aad socoto oo duweynayso maadaama magaaladu kulushahay gaadhiga hoos dhigan kartaa xoolaha amba dadka ayaa harsan kara wax kasta oo harsadana walowdii halkan aan xoolaba laga ogolayn oo aan xoolaba iminka berbera joogin ma filaya laakiin marka qofka lugeynaya geedka hoos taago waxa qofkii beeray waa hubaalin ajar looga qorayo dhirtuna waxa ka mid tahay waxyaabaha ajarka looga qorayo magaalada qurxinaya sida arkaasama magaaladii iminka wuxuu joogeeda ka dhigay mid qurux badan xilligan aan muuqaalada duubayana berberi waxa ku jirtay sideen muuqaalkeeni horeba ku sheegnay jawiyadii ugu qurux badnaa bishii qaboobaha bishii ay magaaladu camirnayd bishii ay reer berbera ku wada sugnaayeen shaqaalaha kale ay wada joogeen ayay bishan ku jirtay marka saaxiibaday ay qaar la wadaagayeen magaalada maxad wadooyinka muuqaal khaas ah uga sameyn weeday waa laga yaabaa dadka isu qoraya waa qaar iyaguna jecel dhinaca horumarka berbera horumarka wadooyinka jecelna in magaalooyinkeena loo qurxiyo wadooyinka maadaama wadooyinku bilicda magaalooyinka kow ka yihiin haddii wadada la qurxiyo hareerteedana la qurxiyo dhismuhu ha iska ahaadaba mid gaboobay ka gaboobina haddii la yar sinjiyeeyo wajahadiisna la qurxiyo magaaladu way iska qurux badnaanaysaa laakiin wadada hareerkeeda ayaa magaalada qurxiya way fahmayaan dadkii wadooyinka iyo xagga dhismaha iyaguna ehelka waxa marka berbera ayaan maalintan ku dalxiisanay oo muuqaaladana idinka duubay wadooyinka berbera intooda badan ayaan soo marnay kuwii hore u garanayeen iyo qaar cusub oo berbera laga sameeyayba berbera xaafadaha isku xidha meel kasta luuq yar oo kasta waxa laga sameeyay wada yar oo isku xidha xaafada meelaha yar ee laga talaabo wadooyin baa laga sameeyay wadooyin waaweyn oo qurux badanna iyagana qaarkood waa la sameeyay marka berberi waxay noqotay mid aad uga horeysa dhinaca wadooyinka kolka loo eego magaalooyinka kale ee Somaliland berbera haddii lagu wada dhiraynta imika ku socota 10 sano amba 5 sano soo socota waxay noqon doontaa mid cagaaran oo qabow oo joogeedu degan yahay sidaan muuqaalo hore idinkula wadaagay magaalooyin aan soo maray sida Herar iyo Diridhaba aad u kululayd ayaan ku sheegay berbera inay tahay magaalada berberi Diridhaba aad ay u kululayd markaa dhirta ayaa loo nacay oo magaalada Diridhaba arki maysi xaggeeda sare dhirta sida lagu yiri markaa maalinta ayaan berbera ku dhaxusay muuqaalka oo sheegay berberi inay tahay magaalooyinka u baahan dhirta in sidan oo kale loogu beero marka maalintan aan berbera joogay waxa ii muuqatay in berbera dhir intii ka badan lagu beeray aadna loo cagaariyay magaaladana haddii ay sidaa lagu sii wado 10 sano amba 5 sano soo socota waxay noqon doontaa mid sida magaalooyinka sheegayo kala dhirta ay ku tahay kolka jawgeeduna uu sidan ka wanaagsan yahay imika uu wanaagsan yahay jawgeedu laakiin xilliyada kulaylka aad ay u kulushahay qof kastana uu dareemayaa inay inta ka kulushahay wadadan imkaan marna waa wada cusub oo terminalka ay dhinacan ka martaa badda ayay ku dhawaataa walow halka dhismaha ay tagto aanan gaadhin laakiin waa wada iyaduna badda ag martay oo aad loo qurxiyay oo imika iyaduna wadadaasina way cusub tahay dhirta aad arkayso dhan imika dhowr sano ka hor oo aan 2 sano ka hor wax yar baaheed oo wadadan maray wataa kortay ee baxday markii laga shaqeeyay ee la waraabiyay wataa baxday marka berberi waxa u socotaa dhinaca horumarka waxay noqon doontaa magaalo la tartantaa magaalooyinka ku yaala geeska Afrika amba bariga Afrika amba kuwa badda ka taloosan ee bariga dhaxaba haddii imika sidaa horumarka aan laga carshacarsanayn oo ku sii socoto sirogani waa siroga taga oo isaguna aad loo cagaariyay garoonka Cabdalla Stadium looga laabo wadadana waa wadada
cabdalle stadium dhinaca bari ka martaa oo ah wadooyinka la sawira inta badan ee berberi caan ku tahay sanadii ugu dambeeyey sawirka wadada waxaa laga yaabaa in aad aragtay wadada haddaan kuu sheego waa wadada hormarta amba agmarta siroga cabdalle stadium oo kan waa kan cabdalle stadiumna halkan ah oo ciyaaro ka socdaanba imika ciyaaro ayaaba ka socda ciyaari Champions Somaliland ayaa ka socda sidaan muuqaalka hore ku sheegay wadadani waa wadada tagaysa Batalala Beach halka ay wax lagu talagalay dadku inay ku siyarnastaan oo ay cadaalad maadaama xilliyada kulusha ay ku siyarnastaan imikana ciyaalaya oo iska ciyaari wadada raaxada leh dhirta raaciya ayaa tagaysa badina waatan sida ayaan badda ku tagnay muuqaalkii wadooyinka khaaska waxaana inta ayuu yidhi